بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أصحابتا أخيارتا كل كحرا كوش مريان channel كذا كل وان سلامة إيو سو نقد وناكسن رون أهانتي وحان جعلاد فيديو ugu horeeya inuu ahaado video oo isla markiiba isbedel oo kheyr qaba oo positive ah oo wanaag iyo xasilooni iyo farxad ah isla markiiba haddaa sameysid nasiixooyinkaas ah hadda videogan ka hadli doono aad ka arki doontid noloshaada isbedel wanaagsan oo kheyr qaba si oo dhaqso leh. waxaan ka hadli doonaa waa dikri adkaarta ka mid ah. horeyna waa uga soo hadla dikrigaas, laakiin videogan waxaa rabaa hab cusub oo nagu dhiirigelin doona inaad dikrigaas si u joogto ah inaa u sameysiin sida u aragtiin mirihiisa iyo wanaagiisa. dikrigan ka hadlayo waa istikfaarta, الاستغفار. marka insha Allah taxana dhan baa raba inaan ka sameeyo oo istikfaarta ku saabsan, leanno yani subxaanallah miraha iyo natiijooyinka iyo sheekooyinka cajiibka oo wanaaga miiran oo haddaad badisid istikfaarta, dadkii istikfaarta badiyay ee la kulmeen arkeen wax lasoo koobi kara ma aha. marka ayna way saa isku dhiirigelino inaa markastaba istikfaarta badino, inaa isxasuusino oo taxanahaas kaa caawino insha Allah inaa si joogta istikfaarta u sheegtid. marka insha Allah hadda taxanaheena xalqadan ugu horeysa waxaan ka bilaabi doonaa macnooyin kala duwan oo istikfaarta leedahay. macnooyin kala duwan baa jirta istikfaar. ereyga waxa waaye talab maghfira, yani istikfaar waxaa laga wadaa inaa ka dalbatid ilaahay caza wajal inuu kuu qafiro dunuubtaada ama inuu dembigaada kuu dhaafo. laakiin macnayaal kala duwan oo ereyga yani root wordka khafara loo isticmaalo luqada carabiga jirta. macnayaashaasna waxayna tuseysaa yani faa'iidooyin badan istikfaarta leedahay. macnaha ugu horeeya haddaan ka bilaabno biidni illaahi tacaala waa macnaha oo ah alximaaya. الحماية وإلالينتا إلهي عز وجل إنو كحفظايو إنو كإلالينايو. معناها سنا waxaa ka aragnay ereyga la dhaho oo asaga yani root wordka ghafara oo erey ka sameysmay ah oo la dhaho mighfar. mighfar maxaa laga wadaa? mighfar yani luqada carabiga waxaa lagu leeyahay waa koofiyada oo birta ah oo dadka dagaalada markay galayaan, junuuda markay dagaalada galayaan ee gashtaan sidii iska ilaaliyaan madaxooda oga ilaaliyaan seefaha ku dhacaya iyo biraha iyo madaxooda sida u ilaaliyaan inay jug iyo inay maxaa la yiraahdaa dhaawac inuu soo gaarin. koofiyad oo bir oo waagi dagaaladii hore la gashan jiray baa mighfar la dhahaa. marka halkaas waxaan ka arkaynaa inuu istikfaarta ku jirto ilaalin. marka muxuu ilaahay kaa ilaalinayaa? ilaahay caza wajal qalbigaada wuxuu ka ilaalinayaa markaa istikfaarta badsatid dembiyaasha badan iyo cudurada qalbiga oo la dhaho spiritual diseaseska oo ka mid ah xaasidnimada, kibirka, nifaaqa, xumaanta, isla weynida, waxaasoo dhan, shakiga, daniga, maxaa la yiraahdaa inaa insecure dareentid, inaa markastaba xasadka, xiqdiga, waxaasoo dhan buu ilaahay caza wajal qalbigaada ka ilaalinaya oo ka nadiifinaya. marka istikfaarta waxaa ku jirta qalbigaada baa ilaahay caza wajal dunuubta keliya ma aha dembigaa sameysid, wuxuuna kaa ilaalinayaa oo markasta kaa badbaadinayaa dunuubtaada natiijooyinka oo qalbigaada ku saameynayso. because markaad dembi geshid, dembi siduu xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ku sheegay macnihiisa, qofka markuu dembi galo nuqtad ama dhibic madow baa qalbigiisa lagu maxaa la yiraahdaa lagu qorayaa. marka taas waxay ku tuseysaa ilaahay caza wajal qalbigaada dunuubtana uu ka ilaalinayaa iyo amraad alquluub cudurada qalbiga oo intaa soo sheegay hadda ka mid tahay buu ilaahay caza wajal qalbigaada ka ilaalinayaa. waxaa kaloo jirta ereyga la dhaho ghafiir waxaa laga wadaa waa waardiyaha. ghafiir yani carabiga waxaa lagu dhahaa ghafiir waa waardiyaha oo guriga ilaaliya ama dukaamada ilaaliya, yani security guard. marka ilaahay caza wajal dunuubtuu kaa ilaalinayaa
wuxuu kaa ilaalinaya wax kasta oo dembi kuu soo jiidi kara, waxyaalaha fitnooyinka ku jira, waxyaalaha oo haddaad aragtid ama haddaa maqashid ama haddaa fiirisid dembi qalbigaadii, indhahaadii iyo maqalkaadii iyo dhagahaadiiba iyo araggaadi usoo jiidi kara buu ilaahay casa wajal kaa ilaalinaya. marka damoora istikfaarta samaysid, ilaahay casa wajal markasta buu ku ilaalinayaa, wuu ku xafidayaa qalbigaada, indhahaada, maqalkaada oo dhan baa waxaa arkaysa inuu ilaahay casa wajal kaa ilaalinayo xumaanta, kaa ilaalinayo dembiga. macnaha labaad oo istikfaarta aan ka arkayno waxaa ka mid ah istikfaarta waa inuu ilaahay casa wajal inuu ku asturayo. waxaa ku jirta yani macno oo ah sitir, asturaad ilaahay casa wajal, ama inuu qarinayo. maxaa la qarinayaa? waxaa la qarinayaa dembigaada inuu ilaahay casa wajal kugu fadiixeynin ummadda iyo khalqiga. markaad dembi geshid, haddaa isa markiiba ilaahay casa wajal ka toobad keentid, ilaahay makfirad ka dalbatid, ilaahay casa wajal maku ceebeynayo oo maku faxshireynayo, oo dadkii ceebtaadii iyo khaladkaa samaysay banaanka uma soo baxayo. xadiid waxaa jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ibn cumar kasoo arooriyay ku saabsan markii yowm alqiyaama la gaaro, yani macnaha xadiidkaas markii yowm alqiyaama la gaaro, qofka mu'minka ah oo ilaahay casa wajal istikfaarta badiya oo mu'minka ah, ilaahay casa wajal markii khalqigiisa iyo dadkiisa adoomadiisa oo dhan maalinta xisaabta oo dadkoo dhan lis arkaayo oo cawradoodii maxaa la arkaayo oo dunuubtoodii la arkaayo, ilaahay casa wajal qofka mu'minka wuu asturayaa. wuxuu ku asturayaa inuu markuu xisaabayo xisaabtiisii oo dembigiisii, xasanaadkiisii, sayi-aadkiisii kulli loo soo bandhigayo faylkiisa ama yani sajilul acmaalkiisa, ilaahay casa wajal qofka mu'minka ah wuu soo dhaweynayaa si oo aayar oo dadka kaloo maqlaynin oo si asturaad ku jirto buu ilaahay casa wajal kugu sheegaya dembigaada. markaas wuxuu ku leeyahay saa adduunyada kugu asturay aan yani kugu ceebeenin baa aakhirana kugu asturaya oo khalqiga hadda hortaagantahay kuguma ceebeynayo. marka taas waxay ku tusaysaa ilaahay casa wajal haddaa istikfaarta badisid markaste, ilaahay casa wajal kuma ceebeynayo, kuma fadeexeynayo, oo dembigaada wuu kuu asturaya haddaa yani istikfaartaada istikfaar oo yani oo saadiq ay tahay oo niyadaada qalbigaada kasoo baxday. ibni aadan baa tahay, perfect ma tihid, waa dembi badannahay, laakiin dembi kastaa galno isa markiiba inaan kasoo noqono oo ilaahay casa wajal aan ka dalbano inuu dembigiina naga cafino, inuu naga cafiyo ilaahay casa wajal. macnaha kale ee leedahay istikfaarta waxaa ka mid ah inuu ilaahay casa wajal ku badbaadinayo. ilaahay casa wajal wuu ku badbaadinaya siduu aayadda oo allah casa wajal ku sheegay suuratu lanfaal 33 wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. marna allah casa wajal ummadan cadaab maku soo ridayo adoo ku jirtid maxamedo sala allahu calayhi wasalam, yacni adoo ku dhex nool oo weli ku dhex dhaqmaysid dadkan, marna ilaahay casa wajal cadaab uma keenayo. marna yacni sabab oo ilaahay casa wajal cadaabta oo ilaahay ibni aadanka uga ilaaliya waxaa ka mid ahayd markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam noolaa. sabab kale aa jirta oo ilaahay casa wajal oo dadka cadaabta uga badbaadin karo oo ah dadka istikfaarta badan. wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. marna ilaahay casa wajal ma cadaabayo adduunyo iyo aakhiro dadka istikfaarta badsada. dadka istikfaarta badsada oo markasta istikfaarta ilaahay casa wajal ka dalbanayo oo ilaahay warsanayo inuu dembigooda cafiyo, marna ilaahay cadaab weyn kuma soo dejinayo. taasna wixii kaloo yani macno kalena wuu jiraa. ilaahay casa wajal horta adduunyadan waa daarul ibtilaa, waa daarul imtixaan. maalin kastaba imtixaan nooca imtixaan gaar ah, yani wax baa lagu imtixaana. aakhiro unbaa adduunka yani aakhiro unbaa ama lagu nasanayaa ama ilaahay casa wajal ilaahay cadaabtiisa naga ilaaliyo oo ama cadaabtaa la aadaya ama jannadaa la aadaya. laakiin intii adduunyo la joogo waa imtixaan 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 imtixaan. marka ilaahay casa wajal waxyaaluhu ku maneystay dadka mustakfiriinta waxaa ka mid ah imtixaan culus ma saaraya dadkaas.
imtixaan oo ayakoo dhan yacni panic mood geliyo oo walwal iyo bahaar iyo big crisis ay ku noqoto, ilaahay casa yani musiibo weyn ama ibtilaa weyn ma tusaayo. lianna waxaa lagu leeyahy dadka mustakfiriinta ilaahay casa wajal wamaa kaana allahu liyucadibahum mucadibahum wahum yastakfiruun. marka ilaahay casa wajal imtixaan oo culus aad qaadi karin oo adigoo dhan maxaa la yidhaahdaa oo wareer badan kugu keenaya, ilaahay kuguma sallidaayo. yes, imtixaad waad maraysaa, adduunkan waa imtixaan, laakiin waa imtixaano khafiif ah oo aayara u mari kartid, oo ka kaban kartid, oo ilaahay casa wajal kaa bixinayo, aad ka kabanaysid, horey noloshaada u soconaysid baad maraysaa. laakiin imtixaan oo noloshaada istaajinaya ama adigoo dhan yacni fooqa taaqadaada ah, ilaahay casa wajal kuguma sallidaayo haddaad tahay dadka istikfaarta badiya. marka subxaan allah, yacni waxyaalaha oo natiijooyinka aada iyo miraha ugu macmacaan bay ka mid tahay oo laga heli karo istikfaarta, inuu ilaahay casa wajal musiibo weyn aad qaadi karin, inuu ilaahay kugu soo dejinaynin. macnaha kale oo waxaa jirta oo aan ka dareemeyno khafara inay yacni na siinayso waxaa ka mid ah cushbat alkhafar. cushbat alkhafar waa geedkaas caleemihiisa waagii hore waxaa loo isticmaali jiray mudaawaad camal. hadduu dhaawac yani qofka dhaawac jirkiisa markuu ku dhaco, daawo oo yani lagu dabiibayo oo lagu daaweynayo oo dhaawacaas nadiifinaysa oo caawinaysa inuu dhaawacaas fiicnaado oo caafimaado bay ka mid ahayd. marka taas maxay ku tusaysaa istikfaarta badan dembiyada dhaawac bay leedahay. subxaan allah, yacni qofka markuu dembi galo dhaawac buu leeyahay. dhaawac waxaan ka wadaa yacni nafsiyan ah oo ah ama yacni shaki ama ilaahay ama ii dembi dhaafeynin, ama maxaa la yidhaahdaa dembigan kasoo bixeynin, ama maxaa la yidhaahdaa subxaan allah, ama dembigan dhibaato kale ii keeni karaa. marka ilaahay casa wajal markaa qufraanka ama ilaahay casa wajal ka dalbatid inuu ku cafiyo, inuu ku saamaxo, ilaahay casa wajal waxyaalahu kugu maneysanayo waxaa ka mid ah dhibaatada ee qalbigaada dembigaas aa samaysay u keentay. ilaahay casa wajal wuu ku ilaawsiinayaa, wuu kaa daaweynayaa, waad ilaaweysaa, dembigii baad ilaaweysaa. natiijo oo dembigaada oo negative ah noloshaada kuma lahaanayo. ilaahay wuu ku cafinayaa, yacni noloshaadana yacni sideedii u soconaysaa. dembigii aad samaysay saameyn oo xun kuma lahaanayo noloshaada haddaa istikfaarta la imaatid. marka macnayaashaas oo cajiibka ah bay leedahay istikfaarta oo nagu dhiirigelinayso ilaahay casa wajal inaan markasta u dhowaano oo istikfaartana badino. haddaan kusoo celiyo, haddaan soo koobo, istikfaarta waxaa dhahna waa ximaaya. ilaahay casa wajal wuu ku ilaalinayaa, wuuna kaa xafidayaa wax kastoo dhib ah. wuxuu kaa xafidaya inaad dembiyaasha samaysid, wuxuu kaa xafidaya waxyaalo kastoo dembi kuu soo jiidi kara inuu ilaahay casa wajal kaa fogeeyo. waxaan dhahnay macnihii labaad oo istikfaarta waxaa ka mid ah ilaahay casa wajal inuu yacni dembigaada inuu ku asturayo, inuu kaa asturayo, yacni ilaahay inuu ku ceebeyneynin oo dembigaadii faxshar fadiixa kugu dhaceynin, oo ilaahay casa wajal inuu sitri ku siinayo oo dembigaadana maxaa la yidhaahdaa kugu ceebeyneynin khalqigiisa. adduunyana ma kugu ceebeynayo oo ku fadeexeynayo, aakhirana kuma ceebeynayo ku fadeexeynayo. taas waa dadka istikfaarta badiya. macnaha saddexaad aan ka hadalnay haddaa soo koobno waxaa ka mid ah yacni macnaha oo mudaawaad. ilaahay casa wajal wuu ka dabiibayaa dhaawacii kaa soo gaaray imtixaankaas ama dhibkaas ama dembigaasaa gashay. ilaahay casa wajal wuu kaa kabayaa, wuu ku daaweynayaa. wax kasta oo qalbigaada dhaawacii soo gaaray, dhibaatadii kusoo gaartay, ilaahay casa wajal wuu kaa kabayaa, wuu kuu hagaajinayaa noloshaada. sidaa hadhow hore u socotid markasta aad gadaal fiirinin, dembigii ku dhacday yani murugadii dembiga kaa haysatay inay markasta kaa daba yani markasta aad xasuusanin. ilaahay casa wajal dembigaas wuu ku ilaawsiinayaa, noloshaadana farxad iyo xusna dan bilaah baa lahaanay.
yaraanaysaa. marka intaasa kusoo ekeysiinayna macnooyinka oo kala duwan ee istikfaarta leedahay. insha allah kuwii mustakfiriinta markastaba ilaahay ha naga dhigo. waxaana insha allah nigu buurinaya nigu dhiirigelinaya inaa istikfaarta badsatiin haddaa rabtiin natiijooyin ama yacni noloshiina inay sii fiicnaato sii qurxoonaato. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.